السلام عليكم صاحبيال وكاف برو nin aamusan iyo xaaskiisii maskaxda badnayd nin ayaa guursaday gabar wuxuu la noolaa si degan oo fiican wuxuu ahaa nin aamusan oo aan hadal badnayn biilka iyo nafaqada reerka uu kasoo bixi jiray caruur ayay u dhashay wuu jeclaa iyaduna way jeclayd hase yeeshee jacaylkiisu wuxuu ku koobnaa wax kasta oo ay u baahan tahay inuu u keeno intaasi wax uma dhaafsiisanayn oo hadal ah lama hadlayn sheeko iyo ciyaar iyo kaftan kale midna lama lahayn wax kasta oo ay weydiisato wuu siinayay oo wuu u keenayay nin baahida xaaskiisa ka gaabiya muu ahayn nin intaas dhaafsiisana muu ahayn 10 sano kadib ayay gabadhii ama xaaskiisii maskaxda badnayd ee Fariid ahayd fikirtay waxay samaysay maalin maalmaha ka mid ah isagoo oo shaqadiisa u sii socda ayaa waxay siisay cajalad ama tape baasha loo yaqaano ama shariidad waxay wax ku duubnayn macnaha waxba aysan ku duubnayn uu ka qaatay oo uu dhaqaaqay dan cajaladii ayuu ku riday raadiyowgii lagu dhageysanayay cajaladii wuxuu sugay muddo dhan 20 sekin ama ilbiriqsi cajaladii way shidmi weyday 40 sekin kadib ayuu hore u dhaqaaqay waxba way ka shidmi waayeen markii muddo dhan 2 daqiiqo uu sugayay ee ay bixi weyday ayuu la xiriiray xaaskiisii wuxuuna ku yiri cajaladan waxba kuma jiraan xabiibi oo way maran tahay waxay ku tiri wuxuu ku yiri cajaladan waxba kuma jiraan oo way maran tahay waxay ku tiri in yar sug way bilaabi doontaa wuu sugay oo wuu rogrogay weli way hadlahay oo waxba kama baxayaan wuu la hadlay xaaskiisii mar labaad wuxuu ku yiri waxba kuma jiraan aniba hal baabaha baad ii dhibtay waxay ku tiri in yar sug way bixi doontaa muddo dhan 12 daqiiqo kadib ayuu gaaray xafiiskiisii shaqada welina cajaladii waxba kama hadlayaan oo sidii ayay u aamusan tahay xaaskiisii ayuu mar saddexaad la xiriiray wuxuuna ku yiri waxaad siisay cajalad maran oo aysan waxba ku jirin waxay tiri marka aad soo ruuxayso galabta ku day oo shid markaas wuu sameeyay waa sidii hore oo waxba iskama bedelin mana shaqeynayso wuu la hadlay mar afraad wuxuuna u sheegay in aysan waxba ku jirin oo ayna shaqeynin guriga ayuu soo gaaray wuu carooday wuxuuna ku yiri miyaad igu cayaaraysaa oo aad igu dheelaysaa waxay ku tiri away cajaladii wuu u dhiibay waxay ku tiri in yar iska naso kadib waxay ka qaaday raadiyihii la gelinayay waxayna ku riday cajaladii waxay ku tiri kaalay dhageyso wuu u yimid wuxuu sugay daqiiqad waa sidii haddana wuxuu sugayay 2 daqiiqo iyo badh haddana waa sidii wuxuu ku yiri suma arkaysid in aysan waxba ku jirin oo ay aamusan tahay cajaladu waxay ku tiri in yar sug oo sabir wuxuu sugay 5 daqiiqo waxba kama soo baxayaan sidii ayay u aamusan tahay markasta waxay ku leedahay in yar sug oo sabir markii dambe ayuu ku yiri miyaad igu cayaaraysaa maanta oo dhan ayaad leedahay sug in yar oo sabir waxay ku tiri in yar sug oo sabir wuxuu yiri ma sabrayo intaas ka badan kadib xaaskiisii Fariid ahayd inta ay soo jeensatay raadiyihiina damisay oo cajaladii ka saartay ayay tiri ma karaysid in aad saburto cajaladan maran saacad barkeed inaad u saburto aniguna waxaan ku saburiyay 10 sano adiga oo aamusan ayaan 10 sano ku saburiyay ninkii uu fahmay ujeedada xaaskii ku xidhay xaaskiisina wax buu ka bedelay xaalkeediina wuu isbedelay fikradaasi yar ee ay samaysay oo kaliya wax badan ayaa iskaga bedelay nala soo mar walba subscribe naga ilaawid